Suldaanka Guud ee Beelaha Garxajis Suldaan Maxamed Suldaan Xirsiqani ay weheliyaan xubno guddiga Garxajis iyo waliba madax dhaqameed iyo waxgarad kale oo iyaguna ka soo kala jeeda beelaha bartamaha waqooyiga iyo galbeedka Sanaag ayaa waxay maanta si diran magaalada Ceerigaabo ugu soo dhaweeyeen Suldaanka Guud ee Beelaha galbeedka Sanaag iyo bariga Togdheer Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cali iyo xubno weheliyay waxaana Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cali oo meel jihada galbeed ka xigta magaalada Ceerigaabo lagaga horteeyay kolkii halkaasi soo gaaray salaan kale iyo laabahay halkaasi ku dhaxmartay Suldaan Maxamed Suldaan Xirsiqani iyo waliba madax dhaqameedkii guurtidii iyo waxgaradkii kale ee halkaasi soo dhaweyntiisa u taagnaa waxaana ugu horeyn halkaasi hadallo kooban oo soo dhaweynta Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cali iyo xubnaha weheliya ka yiri xubna ay ka mid yihiin boqor Maxamed Nuux Aadan iyo boqorka beelaha Magaadle boqor Maxamuud Cismaan Nuur Suldaanka beelaha Carbeed Suldaan Saciid Maxamuud Cali chief caaqilka beelaha Jibraahiil Ibrahim Cabdi Saalax Suldaan Ismaaciil Nuur Wacaysi waliba salaadiin boqorro cuqaal iyo guurti kale maanta waxaa farxad weyn noo ah annagoo halka ku soo dhaweynayna saaka Suldaankii Guud beelaha Habarjeclo oo aan saaka halka isugu soo baxnay soo dhaweyntiisa waxaa leenahay Suldaanka Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cali Suldaan soo dhawow halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa saaka Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cali Muuse iyo wafdida uu hogaaminayay oo ka mid yahay boqor Gaacir waan ku soo dhaweynaynaa gobolkiisii baan ku soo dhaweynaynaa degmada Ceerigaabo waxaan leenahay Suldaan soo dhawow halkan maanta waxaan ku soo dhaweynaynaa anigoo Suldaan Saciid Maxamuud Cali ah Suldaanka Guud Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cali ee beelaha Habarjeclo iyadoo ay salaadiintii guud ee kale Suldaankii Guud Habaryorisna uu joogo Suldaan Maxamed Xirsiqani maanta gobolka Sanaag nabadgelyadiisii waxaan u haysanaa inay salka dhigtay Suldaanka Guud ee beelaha Habarjeclo waa soo dhaweynaynaa soo dhawow Suldaan soo dhawow halka waxaan ku soo dhaweynaynaa Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cali oo nabadeyntii ceelaf weyn iyo soo qatimay faaqiga gobolka degmada Sanaagna xoogaa ka jira inuu gabagabeeyo iyo salaadinta kale ka timi Hargeysa waxaan leenahay aad iyo aad buu mahadsantiin inta aad soo qabateen waynu ku mahadinaynaa inta dambe gabagabaana Allah idin la qabto Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cali soo dhawow baan leenahay marka waxaan ku soo dhaweynaynaa Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cali Suldaanka Guud ee beesha Habarjeclo oo iyo salaadiinta kale oo halka ka soo horeysay ka soo wada shaqeeyeen hawlihii cuslaa ee siniinka socday halkaas soo afjareen nabadda iyo quruxda ku soo afjaray ayaan ku soo dhaweynaynaa dhammaantood waxaan leenahay Ilaahay idinka jazaaisiyo waxaan noo sharaf ah inaan ku soo dhaweyno Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cali degmadan Ceerigaabo oo maanta uu yimi hawl nabadgeliyo waxaan rajaynayaa sidii hawlihii ceelaf weyn ay u soo dhameeyeen isaga iyo salaadiinta kale ee waayelka u yahayba inay tii Ceerigaabana u dhameyn doonaan Suldaanka Guud ee Beelaha Garxajis Suldaan Maxamed Suldaan Xirsiqani oo intaas kadib isaguna halkaasi kelmado kooban ka soo jeediyay ayaa waxa hadaladiisa ka mid ahaa Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cali oo ceelaf weyn waftigii aan wada joognay iyo nabadeynta u joognay nagaga dambeeyay oo ka soo yara talaabo horeeyay baan ku soo dhaweynaa halkan waxaan rajaynaynaa xaalka halkan yaalana inaanu gacanta marino oo dhameystiro ugu dambeyntiina Suldaanka Guud ee Beelaha galbeedka Sanaag iyo bariga Togdheer Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cali oo halkaasi ka hadlay ayaa isagoo si weyn uga mahad celiyay soo dhaweyntiisan waxa hadaladii uu halkaasi ka yiri kamid ahaa ragga igu soo dhaweeyay halka kale iga hor yimi waxaan leeyahay inta midicday taagnaydeen halkan igu sugayseen Ilaahay waxaan idinka baryayaa ajar laba laaba inuu idinka siiyo sida loo sheegay waxaanu baryahanba u joognay gobolka degmada ceelaf weyn nabadeyn halkan taas waa noo dhamaatay Ilaah baa noo dhameeyay oo ku mahad leh gobolkana waxaan u nimi waxoogaa ka harsan hawshii inaanu gacanta marino intaasi kadibna Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cali iyo xubnaha weheliya ayaa waxa loo soo galbiyay dhinaca gudaha magaalada Ceerigaabo waa Cabdullaahi Xuseen Darwiish Somali Cable TV Ceerigaabo